السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan ku soo dhawaada mar kale iyo casharkeennii biology secondary form 1 chapterka saddexaad casharka koowaad. chapterkeennii saddexaad waxa uu ku saabsan yahay tissues structure and function. intaanan casharka gudaha u gelin fadlan subscribe garay haddii aad ku cusub tahay Kororso Aqoon channel si aad ula socoto casharada cusub ee la soo geliyo oo aad durbadiya u aragto. fadlan like saar page-keena oo subscribe garay followna dheh. casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waa chapterka saddexaad tissues waa nudayaasha. structure ayaan kaga hadlaynaa qaab dhismeedkooda and function iyo shaqada ay ka hayaan jirka. sidaynu ku soo marnay chapterkii hore waxaad soo baratay noolayaasha oo dhan inay ka samaysan yihiin seelal. seelash waxaan u qaybinay unicellular organisms iyo multicellular organisms, noolayaal hal seel leh iyo kuwa seelal badan leh. unicellular organismska kuwa halka seel leh, halka seel ayaa u qabanaya shaqooyinka aasaasiga ah ee noolaha oo dhan. tusaale waxaa ka mid ah amoeba ayaa ka mid ah. halkaas seel ayaa waxa uu qabanayaa howlaha seelku u baahan yahay oo dhan, sida dhaqdhaqaaqa, cunto qaadashada, hawo isweydaarsiga iyo qashin saaridda. laakiin noolayaasha seelasha badan leh waxa oo loo yaqaano multicellular organismsku waxay leeyihiin seelal badan ayay leeyihiin oo qabta shaqooyin kala duwan. tusaale, unugyada murqaha waxa ay qabtaan contraction iyo relaxation, wax la yiraahdo inay soo aruuraan ayna fidaan. aruuritaankaas iyo fiditaankaas ayaa waxaa ka dhalanayo dhaqdhaqaaq. unugyada neerfayaasha waxa ay qaadaan warbixinada ay jirka geeyaan kana soo qaadaan maskaxda. haddaba sidaa daraaddeed waxaynu kaga hadlaynaa chapterkan wax la yiraahdo seelal fara badan haddii ay kulmaan, shaqooyinka ay qabtaan iyo waxa ay noqdaan. tissue haddaynu qeexno waxaan ku qeexi karnaa a group of cells that perform particular function forms a tissue. koox seelal ah kuwaasoo qabta shaqooyin u gaar ah waxa ay sameeyaan nude. koox seelal ah hadday aruuraan meel isugu tagaan shaqooyin ay qabtaan, intaasoo seel meel isugu timid waxaa la isku yiraahdaa tissue baa la yiraahdaa. seelku waa unug. haddii seelashu ay bataan waxay noqdaan tissue, nudayaal bay noqdaan. tissue-yada waxaa loo kala qaadaa labo: simple tissue iyo complex tissue, nude fudud iyo nude isku dhaf ah. haddaynu qeexno simple tissue waxaynu ku qeexi karnaa a tissue that is composed of cells that are identical in shape and structure is called a simple tissue. nude fudud waxaa la yiraahdaa waa nudaha uu ka samaysan yahay seelashaasoo isleh xagga qaabka iyo isku dhiskaba. qaabka iyo isku dhiskaba seelasha iskaga eg yihiin. nudaha noocaas oo kale waxaa la yiraahdaa simple tissue ayaa la yiraahdaa. waa nude ka samaysan seelashaasoo haddana isku nooc ah qaab dhismeedkooda iyo qaabkoodaba. waxaa ka mid ah parenchyma tissue ayaa ka mid ah. complex tissue-na waxaa la yiraahdaa tissue isku dhaf ah. waa haddii tissue-ga uu ka samaysan yahay seelal badan oo kala jaad ah, kaasna waxaa la yiraahdaa complex tissue ayaa la yiraahdaa. waxaa ka mid ah phloem tissue. waynu arki doonaa waxa ay yihiin tissue-yadaas oo dhan. halkan waxaan ka gelaynaa types of tissues, noocyada nudayaasha.
nudayaasha waxaa loo kala qaadaa laba nooc marka loo fiiriyo noolayaasha ay ku kala jiraan. Marka loo fiiriyo noolayaasha ay ku jiraan waxaa loo kala qaadaa laba qaybood oo la yiraahdo plant tissue iyo animal tissue. Nude laga helo dhirta iyo nude laga helo xayawaanka. Haddaba aynu ku horumarno plant tissues, nudayaasha laga helo dhirta. Nudayaasha laga helo dhirta waa kuwa laga helo dhirta. Waxaana loo qaybiyaa laba qaybood. Waa marka loo fiiriyo the stage of development, xaaladda ay ku korayaan ama ay u korayaan. Waxaa loo kala yaqaanaa meristematic tissue iyo permanent tissue. Meristematic tissue waa nude oo meristematic ah, yani dividing tissue waa tissue qaybsamaya oo tissue kale noqonaya. Permanent tissue waa non-dividing tissue, waa tissue aan qaybsamin. Marka permanentiga waxa uu ka farcamay meristematic ayuu ka farcamaa. Waxaa asal ah marka meristematic tissue ayaa asal ah. Permanent tissue waxa uu ka farcamaa meristematic ayuu ka farcamaya. Sidaa daraadeed marka tissue-yada marka loo fiiriyo qaabka ay u korayaan iyo xaaladaha ay marayaan waxaa loo kala qaadaa meristematic tissue, tissue qaybsamaya, iyo permanent tissue iyo tissue aan qaybsamin. Intaanan guda gelin qeexitaanada meristematic tissue iyo waxa weeyaan permanent tissue, waxaan sharax guud ka bixinayaa sida waxa weeyaan labadan tissue ay u yaalaan. Sidaynu la wada socono, geedku markuu dhirir ahaan u korayo waxa uu ka koraa laba meelood oo ah qayb la yiraahdo root tip iyo qayb la yiraahdo shoot tip. Food xidid iyo food jirid. Qaybta jirida ah wuu ka korayaa geedka ee fooda kore. Qaybta hoosena ee xididadana waa uu ka korayaa. Sidaa daraadeed marka waxa weeyaan labadan qayb uu geedku ka korayo kor iyo hoos waxa ay leeyihiin seelal ay leeyihiin seelal ay ka samaysan yihiin. Seelashaas marka waxa ay ka qayb qaataan geedka koriinkiisa ay ka qayb qaataan iyo inay soo saaraan seelal kale. Seelasha marka ayagu ay soo saaraan waxaa la yiraahdaa permanent tissue ayaa la yiraahdaa. Waa tissue aan qaybsamin oo labadan qayb ay soo saaraan, seelasha ay soo saaraan. Waxayna qabanayaan shaqooyin sida waxa weeyaan safrinta biyaha, cunto samaynta, waxyaabahaas ay ka qayb qaataan. Haddaba haddaynu qeexno meristematic tissue, waxaan ku qeexaynaa composed of immature or undifferentiated cells without intercellular spaces. Waxay ka samaysan yihiin seelal oo aan kala socnayn, oo aan saas u weynaanin, oo yaryar, oo aan lahayn spaces, aan lahayn seelasha dhexdooda. Dhowr nooc baa loo heli karaa ayagoo qaab goobo u samaysan, ayagoo isku duuduuban, ayagoo geesoolayaal ah ayaa la helayaa. Inta badanna meristematic tissue waxa weeyaan waa kuwa nool, darbiyadooduna waa kuwa dhuudhuuban. Waxaa aad looga helaa, ay ku badan yihiin cytoplasm bay leeyihiin iyo vacuoles-ku waa ku yar yihiin amaba ma lehba. Meristematic tissue waxaa loo kala qaadaa 3: apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem. Waa nudaha geedka uu ku korayo ee qaybsamaya ee permanentiga ka farcamaya. Waxaa loo kala qaadaa apical iyo intercalary iyo lateral. Isagaa noo sharxaya. Apical meristemka waxaa laga helaa root tip
and shoot tip. Fooda xididka iyo fooda jirida ayaa laga helaa. Function shaqada uu qabto waxa weeyaan growth in length of plants. Geedka inuu koro ayuu ka shaqeynayaa. Intercalary meristem waxaa laga helayaa at the base of leaves. Caleemaha salkooda ayaa laga helaa. Shaqada ay qabtaan waxa weeyaan internodal growth waa koriinka ruqurta. Lateral meristem waa qaybta saddexaad. Waa qayb cambium ah. Waxay u dhaxaysaa labadan tissue ee la yiraahdo xylem iyo phloem tissue ayay u dhaxaysaa. waxayna ka qayb qaataan lateral meristemka. Shaqada ay qabtaan waxa weeyaan growth in thickness of the phloem and cork. Waxay ka qayb qaataan koriinka xagga dhumucda geedka iyo qaybta phloem la yiraahdo ayay ka qayb qaataan. qaybta labaad ee tissue plant tissue loo kala qaado waxa weeyaan permanent tissue. waa tissue oo joogto ah, yani waxa weeyaan aan qaybsamaynin. haddaynu qeexno permanent tissue are those in which growth has stopped either completely or for the time being. Permanent tissue waxaa la yiraahdaa waa midka koriinkiisii uu istaagay, si buuxda koriinkiisii uu joojiyey ama xilli. waxay noqon karaan kuwa nool ama kuwa dhintay ay noqon karaan. Permanentiga waa kuwa ka farcama meristematiga weeye. derbiyadoodii waxay noqon karaan kuwa dhuudhuuban ama kuwa dhumuc leh. kuwa dhuudhuuban inta badan waa kuwa nool, halka kuwa dhumucda lehna inta badan waa kuwa dhintay ay noqon karaan ama kuwa nool way noqon karaan. mar kale permanent tissues waxaa loo kala qaadaa laba nooc: simple tissues iyo complex tissues. tissueyadan ka farcamay meristematic tissue-ga ee aan qaybsamaynin waxaa loo kala qaadaa simple tissues kuwa fudud iyo complex tissues iyo tissues isku dhaf ah. sideen hor usoo qeexnay weeye, simple tissue waxaa la yidhahdaa made up of only one type of cells. keliya waxay ka samaysan yihiin hal nooc oo seelal ah. waxaa ka mid ah parenchyma tissue, collenchyma tissue, sclerenchyma tissue ayaa ka mid ah. permanent tissue waxay kaloo u kala baxaan complex tissues, tissue oo isku dhaf ah. waxay ka samaysan yihiin seelal badan oo wada shaqaynaya. waxaana ugu waaweyn xylem iyo phloem. xylem muxuu qabtaa? xylem is a conducting tissue which conducts water and salts upward from roots to leaves. wuxuu gudbiyaa biyaha iyo cusbada ayuu u gudbiyaa. xididada ayuu ka qaadaa, caleemaha ayuu u gudbiyaa. xylem tissue la yiraahdaa waa nude oo laga helo geedka dhexdiisa. jirida iyo caleemaha wuxuu kala safriyaa. waxaana loo yaqaanaa vascular tissues ayaa la yiraahdaa. waa nudayaasha oo xididada ah, qaab xidid oo kale u shaqaynayaan. waa qaybta geedka u qaabilsan inay gudbido biyaha iyo cusbada xididada ka soo qaado carrada ay u gudbido qaybaha kale ee geedka sida caleenta ayaa waxaa la yiraahdaa xylem tissue waa la yiraahdaa. phloem tissue-na waxaa la yiraahdaa asagana waa gudbiye which conducts foods synthesized in the leaf to different parts of the plant. wuxuu gudbiyaa waa nuda gudbiya biyaha cuntada ayuu gudbiyaa. cuntada waxa weeyaan oo caleentu ay samaysay photosynthesis ayaa waxaa loo gudbiyaa qaybaha kala duwan ee geedka ayuu gudbiyaa. wuxuu ka kooban yahay marka asaga sieve tubes, tubooyin oo wax shaqo u leeyahay phloemka.
companion cells cellal weheliya ayuu leeyahay phloem fiber meeqiyo wuxuu leeyahay oo phloem ah iyo phloem parenchyma dhageystayaal daawadayaal casharkeeni maanta ee ku saabsanaa tissues gaar ahaan aynu ku qaadanay plant tissues halkaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا سبسكرايب قري أو شير قري